الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. caawana waxaanu ka hadlaynaa haddii ilaahay idmo qeybtii saddexaad oo ahayd maskaxda dhisideeda ama daryeelka maskaxda. sidayn ognahay ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka markuu abuuray wuxuu siiyey maskaxdaas uu kaga duwan yahay xoolaha kale. marka maskaxdaas ayaa awgeedna waxa oogada looga saaray waxyaalaha waajibaadka la yiraahdo oo laga doonayo inuu sameeyo. saa awgeed maskaxda waa inuu qofku u ilaaliyaa suu jirkiisa u ilaalinayo ama si ka daran. waxaa jirta maahmaha oranaysa maskaxda caafimaadka ah waxay ku jirtaa jirka caafimaadka. waa run, jirka caafimaad leh ayaa maskax caafimaad lehna wata. waxaa muhiima marka oo taas ka horeeya inuu qofku marka ugu horeeya ka dheereeyo maskaxdiisa waxyaalaha doorinaya oo la yiraahdo maandooriyaalka, oo maskaxdiisa ka dheereeyo sigaarka horaan usoo sheegnay, qaadka, khamriga, mukhadaraadka waxyaalaha la yiraahdo ama drugska, iyo waxyaalaha kale oo jirka bini aadamka maskaxdiisa wax u dhimaya. maskaxdaada waa inaad ku dadaashaa inaad korisid. oo see loo korinayaa maskaxda? waxaa lagu korinayaa in laga shaqaysiiyo maskaxda. maskaxdu hadday noqoto mid iska fadhida oo aan waxna la barin, waxna madaxeedana la gelin, waxay noqonaysaa mid meesheeda ku yuruurta oo ku baaba'da. marka maskaxda waa inaad aada iyo aada uga shaqaysiisaa. maskaxda aadka u shaqaynaysa waxyaalaha ka daahaya waxaa ka mid a gabowga iyo kharafka waxa la yidhaahdo ama isku darsanka qofka isku darsama. qofka maskaxdiisa aada u shaqaynayso badanaaba kuma ay dhacaan. waxyaalaha koriya maskaxda qofka maxaa ka mid a? waxaa ka mid a xalinta halxiraalayaalka, sidoo kale xalinta mushkiladaha. waxaa kaloo iyadana xisaabaha iyo waxyaala isku daridda iyo wax kala goynta iyo waxyaalaha la yidhaahdo logiga ama mandiqa. waxaasu saa hadduu noqdo saasuu noqonaya, maya saas ma. waxyaalahaas oo dhan maskaxda wax weyn bay u taraan. waxaa la yidhaahdaa horena oo usoo sheegnay waxa ama isticmaal jirkaaga ka mid a ama beel. haddii maskaxda markaad isticmaashid oo ka shaqaysiisid waxa weye way koraysaa. haddii aadan ka shaqaysinna meesheedii bay fadhinaysaa. waxyaalaha maskaxda faa'iidada u leh waxaa ka mid a sidaan hore usoo sheegnayba cunooyinka kalaha duwan oo isu miisaaman oo sida jirkoo kale, ilaa jirkii bay ka mid tahay maskaxdu cunooyin isu miisaaman haddaa cuntid, waliba cunooyinka qaarkood waxay u fiican yihiin xasuusta, waxay u fiican yihiin inay cudurada maskaxda ka ilaaliyaan. maskaxda waxaa kaloo faa'iido u leh cayaaraha, inuu qofku jimicsi sameeyo. kulama aad jimicsi samaysid nafsigaaga fiicnanaya. nafsigaaga hadduu fiicnaado wadnahaagii baa shaqaynaya. wadnahaagii hadduu shaqeeyo dhiigaagii baa jirkii wada gaaraya. iyo sidoo kale maskaxda oo kale, jirka maskaxdu sidoo kale waxay ku kortaa in cunada say ugu baahan tahay bay ugu baahan tahay cuno maskaxeed. cuno maskaxeed maxaa laga wadaa? inay wax akrisay u baahan tahay, inay wax dhegeysatay u baahan tahay, inay wax fiirsatay u baahan tahay, inay dad khibrad leh oo wax soo arkay la sheekaysatay u baahan tahay, oo ay wax ka kororsan karto. marka kullamaa aada u tagtid dad kaa aqoon badan oo kaa khibro badan waxbaa kaaga kordhaya. markaad laakiin aad ku mashquulsid ama ku dhex jirtid dad mooryaana, dad jiri ah, dad magaranaysaa dayday ah, maxay kuu kordhinayaan? faaqidu shay laa yucti. qof aan waxba haysan waxba kuguma biirin karo. waxaa jira maamaad oranaysa ingiriis ah, garbage in garbage out, ama qashin ku gur qashin kala bax. maxaa laga wadaa? haddaad 24 saac maskaxdaada ku mashquulisid afkaar xun, buug xun, muxuu ahaa filimo xunxun, muxuu ahaa sheekooyin xunxun, maskaxdaadu waxaa shaki aan lahayn inayan korayn ee ay ka siyaadsanayso hoos u dhac. waxaa maskaxda koriya akhrinta qur'aanka kariimka iyo fikirkiisa, axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam, buugag waxtar u leh adduunyadaada iyo aakhiradaadoo la akhriyo. waxaasoo dhan maskaxdaada ayay korinayaan. walaal maskaxdaada ha ku mashquulinin waxyaala aan macno lahayn. ha ku mashquulinin dad inaad qalbiga wax ugu haysid. maxaa yeelay marka qof kale maskaxda aad wax ugu haysid waxay keenaysaa inuu ka ijaarto maskaxdaada qeyb ka mid a adoo usan lacag ku siin.
maxaa intaba ka fiican inaad iska cafisid. markaad qofka cafisid maskaxdaadii waxay noqonaysaa mid free ah ama banaan oo wax kala qabsan karta. haddaad dareentid maskax wareer xanuun oo xanuun maskaxda uu ku galo sabab kastaba ha ku gale, ha xishoonin, ha dhihin waa waalan yahay baa lagu dhahaya, dhakhtar u tag, isdaawey, cudurada maanta waa la daaweyn karaa. ha ku mashquulin waa la ilaystay iyo waa la sixray iyo ma afkaa la igu hayey iyo ma garanaysa jinni baa i galay, waxyaalahaas aan la hubin oo qeybka ah ha isku mashquulina. dhakhtar caadiya u tag oo daawo cudurkaaga baara. marka intaasoo dhakhtar u tagtid oo ka quusatid, bal waxyaalahaas oo kale markaas inta diintu ka ogoshahay ka isticmaal. weliba iyadoo laleeyahay waxyaalo badan oo gubiddu ay ka mid tahay, caafimaadku xaggiisu kuma jiro. intaa markaan ka gudubno, markaad wax badan akhrisid, markaad dhul badan martid, markaad dadka badan aada la kulantid, marka waxaasoo dhan maskaxdaada waxay u tarayaan inay xoojiyaan oo xoog ay siiyaan. barnaamijyada aad fiirsanaysid oo telefishan ka fiirsanaysid, kuwa idaacadaha ka dhegeysanaysid, sheekooyinka aad dadka kulli waa inay noqdaan wax adiga ku dhisaya, yaya noqon. xataa internetka markaad gelaysid aad iyo aad ugu mashquulin Facebook iyo Twitter iyo waxaas iyo sheekooyinaan waxba aadan ka ziyaadayn. ku dadaal waxyaalo barnaamij, xataa internetka waxaa ka buuxa, maktabaad baa ka buuxa, libraries oo cilmi fara badan aad ka siyaadsanaysid. marmarka qaarkood walaal waxaa lagaa doonayaa inaad meel keligaa fariisatid oo fikirtid, ku fikirtid ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha u abuuray koonka, danahaaga. mar adigoo keligaa degana maskaxdaada waxay u siyaadinaysaa koritaan. ugu dambeyn walaal waxaan ku leeyahay maskaxdaada ilaali, ku dadaal, ha dhihinin maanta waktigaan ku lumanaynaa turub iyo waxyaalo noocaasa. turub iyo cayaar maxaa kaaga ziyaadi? wax kaaga ziyaadayaan oo adduunyada iyo aakhiradaada manfacaya. maskaxdaada u badi oo ka faa'iideyso. intaas ayaan caawa kusoo koobayaa maskaxda arrinteeda. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu.